wanaume wana 2.5 na wanawake wana 3 million. Munaasabadani lacagta tabarucaadda lagu aruurinayay ayaa waxaa lagu aruuriyay lacag gaaraysa 7 milyan oo shilin, iyadoona lacagtaasi ay noqonayso lacag lagu kaabi doono dalada ururka haweenka ee Salaama ee weyneynta kitaabka Quraanka Kariimka oo ah dalad ay ku midoobeen qaar ka mid ah dumarka ku nool magaalada Mombasa oo la aasaasay sanadkii 2020 waxaana ujeedka ugu weyn ee loo aasaasay ay tahay weyneynta kitaabka Quraanka Kariimka. Mas'uuliyiinta ururkan haweenka ee Salaama ee weyneynta kitaabka Quraanka Kariimka ayaa waxa ay noo sheegeen in loo aasaasay in ay wax ka qabtaan xaaladda dayacaadda ee kitaabka Quraanka Kariimka oo ay sheegeen in xaafadaha, masaajidada iyo waliba sidoo kale madaarista uu kitaabka Quraanka uu ku dayacan yahay isla markaana oo ay kitaabo badan oo go'go'ay ay yaalaan, iyagoo sheegay in ujeedkoodu yahay ugu dambeyn inay sameeyaan madbacad soo saarta kutubo gal adag isla markaana ay caruurtu ay isticmaali karaan. Munaasabadani dhaqaalaha loogu aruurinayay ururkan haweenka ee Salaama ee weyneynta kitaabka Quraanka Kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Mombasa iyo waliba sidoo kale culimada magaalada Mombasa. Lacagtani la aruuriyay ee gaaraysa 7 milyan ee shilinka Kenya oo dhiganta $70,000 Mareykanka ayaa waxay noqon doontaa mid lagu fududeyn doono howlaha shaqo ee hayaan daladani. Sheikh Abdulwahab Isxaaq Ibrahim oo kamid ah culimada magaalada Mombasa kana mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyay munaasabadani dhaqaalaha lagu aruurinayay ayaa faafayn dheeraad ah naga siiyay. ما شاء الله warbaahinta Star FM iyo Group Star oo dhanba waa mahadsan yihiin oo salaamayna runtii waxaan ugu mahad celinaynaa ka qaybgalka ay nagala qayb galeen mashruucan oo mashruuc aad u qiimo badan ah oo maanta magaalada Mombasa iskuulka Abu Hurayra Academy masaajidkiisa lagu qabtay. mashruucan runtii waa mashruuc ku dayasho mudan, gabdhahan khayr Allah siiyo mashruuc ay u bixiyeen تعظيم كتاب الله عز وجل أو مؤسسة مسجل وليراد السلامة ومن جروب أما مرت جمعية سلام لتعظيم كتاب الله بأساسين جروب إيجارتين وددا سنة بركة وحي أرورنا كتبها مقرنا يسا باليوبي ومدارس القرآن يا مدارس مقرنا يسا تحفيدك يا معاهد إسلامية يا مساجد يا جريها kasoo aruurinayaan waad aragtaan kutubaha sida ay yihiin. kuwaan oo kale waa la gubayaa uma suubadan in la islaaxiyo, kuwaan oo kale ayaa u suuban in la islaaxiyo wixii islaaxa qaabili kara muujeedaa. marka guri ijaaray bixiyaan kutubahana ayagaa ma garanaysaa sameeya. hawsha waa ku ballaaratay, waxay u yimaadeen culimadii iyo ganacsatadii in wax lala qabta ayay codsadeen. الحمد لله maanta waxaa loo qabtay ma garanaysaa fundraising ama jamcu tabarucaad. guriga waxa way 7 milyan weeye, 7 milyan alxamdulillah maanta halkan lacagtii waa la helay. sidoo kale mas'uuliyiin ka mid ah ururka haweenka ee Salaama ee weyneynta kitaabka Quraanka Kariimka ayaa waxay la hadleen warbaahinta Star. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa dhamaanteen inuu tawfiiqdeena waafajiyo. waxaan doonaynaa inaan ka hadalno mashruucan maanta halkan la isugu yimid. runtii waxaa maaragtay nagu dhaliyay markaan aragnay gabdhahan isku xilqaamay waxaa ku dhaliyay in markii la arkay kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala oo meel kasta ku dayacan, khusuusan meelihii xiriirka la lahaa oo ay ka mid yihiin dugsiyadii, macaahidii iyo masaajidii iyo guryihii dhammaan. arrintaas oo runtii aad iyo aad arrin u foolxun ah. marka waxaan ugu talagalnay inaan shacbigeenana aanu ka badbaadino carada Ilaahay oo arrinta ka dhalanaysa. kitaabka Allahna maaragtay dayaca iyo qashinka la dhigayo iyo ihaanada uu la kulmayo aanu maaragtay ka bedelno oo aanu taana ka badbaadino. Jamciyadda Salaama ee dumarka ee magaalada Mombasa ayaa waxa ay isku hawleen inay hagaajiyaan musxafka Quraanka Kariimka iyagoona sidan u bedelay isla markaana saan ka dhigay iyadoona kutubta saan loo jeexayna ama saan noqdana ay doonayaan in la gubo si markaasi aysan u imaanin dhibaato tan ka weyn oo ah kitaabka inuu dayacmo. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star magaalada Mombasa.